naadigan ay u ciyaaraan gabdhahan ayaa lagu magacaabaa New American Youth Soccer Club waxaana la aasaasay 2012 laba sano ka hor ayay bilaabeen inay tababar u furaan gabdhaha yaryar oo sodomeeye ah halka wiilashuna ay ka yihiin 110 shantii sano ee ugu horeysay naadigan gabdhuhu waxay ka ahaayeen daawadayaal ama waalidiinta keena wiilasha ayay gaariga ugu dhex jiri jireen asaasaha naadigan tababare Cabduqaadir Maxamed oo loo yaqaano Cabdul ayaa yiri su'aalaha gabdhaha iga yimaada iyo qaar kamida waalidiinta ayaa igu xambaaray in toddobaadkii laba cisho aan tababar siino gabdhaha baahida keentay mid ugu weyn waxay ahayd gabdhihii oo soo raacay wiilasha walaalahood garoonka markay imaadaan runtii oo dareemayeen ayagana inay ka qayb qaataan sportiga marka baahi weyn dhinaca waalidiinta nooga imaatay oo codsadeen in gabdhaha ay ka qayb qaataan marka waxaan ka fikirnay in aan gabdhaha ilaalino diiniyan dhaqankooda u raadina qalab ay ku dheeli karaan ayagoo yaryar bilaabida naadigan inuu tababaro kubadda cagta ee gabdhaha ma aha mid ay ku farxeen qoysaskii hore ee naadiga ka tirsanaa ee waa mid ay ka faa'iideysteen hooyooyinka kale oo dhan oo gabdhahooda isboortiga la rabay sida ay tiri Nasra Nuur aad baa ugu faraxsanahay Janice kala siiyay gabdhaha awal hore maanu haysanin wiilal kale ciyaari jiray anna wiilal ima joogan afar gabdhood ay jooga marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay gabdhaha in maaragtay ayagana Janice la siiyay ee ka qayb galaan ciyaaraha Maryan Cali oo kamid ah hooyooyinka ilmahooda naadiga ka tirsan yihiin ayaa qabta in fursadan fiican aysan hore iyada u soo marin xilligii ay Soomaaliya joogtay hadda se ay ubadkeedu farxad ka qaadeen ciyaaridda kubadda cagta markii hore anaga Janice maan helin inay gabdhaheena soccer aadno oo soccer ciyaarno maadaama hadda ilmaheena ay heleen meel ay fan ku qaataan oo waqti ku dhumiyaan oo ay ku ciyaaraan soo marka waxaan helnay Janice badan ilmihi u helnay ayagana happy ku noqdaan ciyaaridda isboortiga ka sokow gabdhahan waxa ay ka heleen saaxiibo waxayna ogaadeen inay jirto jaaliyad ay ka mid yihiin ayay leedahay Nasra Nuur saaxiibo badan ay yeelatay mid kalena waxa waaye community-ga maaragtay caruurta markii saan oo kale wax loo qabto team member inay ka mid tahay oo dadkeeda ku dhex jirta ee dareemaysa tababare Cabdul ayaa yiri arinka kale ee na xoojiyay waa gabdhahan saaxiibadooda Mareykanka ay waxbarashada wada dhigtaan waxa ay uga sheekeeyaan isboortiga ay ciyaaraan markaasaan waxaan go'aansanay inaan annaguna gabdhahan u sameeyno isboorti ay uga sheekeeyaan saaxiibadooda Mareykanka ah waxa jiro gabdhaha hadda heeno gabdha saaxiibo leeyihiin oo wadankan ku dhashay marka gabdhihii wadanka ku dhashay oo run ahaantii ka qayb qaadanayo dhinaca isboortiga taas ayaa baahi weyn keentay marka gabdhihii inay guryaha joogaan si waalidiintii noola hadlaan dhahaan gabdhahan maxaa xal loo hayaa jacaylka ay u qabto isboortiga awgeed ayay waxbarashadeediina kor u kacday gabadheedu ayay aaminsan tahay Maryan Nuur hadda kale markay homework ka bixi weysa waxaan dhahnaa soccer ma aadays maanta waa laga joojinayaa soo homework dhaqsay qoranaysa waxbarashadeedana hore u kacday that's why marka hadda soccer-kii aad u jeclaadeen ilmihii inay aadaan wax bartaan markii ay bilaabeen ciyaarsiinta gabdhaha ilaa hadda ma jirtaa cid dhaqan ahaan naadigan uga hortimi oo leh sidee gabdho kubad cag u ciyaarsiisaan ayaan weydiiyay Maxamed Rashiid oo kamid ah tababarayaasha naadigan waalid badan oo community kamid ah ayaa qalad laga fahmay oo ka soo horjeeday laakiin marka dambe waxay ogaadeen xaqiiqdii inay dhab tahay ay u baahan yihiin gabdhaha activity haddana gabdhihii aad bay wada bateen dad baa weli ilaa hadda qalad ka fahansan inay gabdhaha ciyaaraan oo ay kubadda cagta ciyaaraan ilaa hadda waalid baa weliba qalad kasii fahansan laakiin waynu u baahannahay gabdhaheenna in ay ciyaaraan kubadda cagta naadigan oo dhawaan u dabaaldegay sanad guuradiisii 7 ayaa waxa kala soo qayb galay duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey oo ku amaanay fursadda ay siiyeen gabdhaha iyo wiilasha da'yarta ah isagoo xariga ka jaray bas uu naadigan yeeshay kuna iibsadeen isku tashiga waalidiinta iyo maamulka oo aysan ku caawin ganacsato iyo cid kale waana naadiga kaliya ee gaadiid yeeshay Minnesota gabdhana tababara